saaka waxaan kormeer ugu tagay ganacsatada Soomaaliyeed beeraleyda Soomaaliyeed ee khudaarta keena magaalada Muqdisho runtii oo halkaan saf dheer ku jira oo ciidamada amniga ka sugaya in loo adeego oo baabuurta ay wataan si shacabka Soomaaliyeed looga waardeeyo dhibaatada argagixisada oo ku soo dhuuman kara khudaarta halkaan adeeg dawladeed ku sugaya waxaan la kulmay taliyaha halkaan maamula ayaanu kulannay iyo ciidanka sharafta leh halkaan shaqada ka haya iyo beeraleyda ayaanu kulannay oo ka wada hadalnay duruuftooda ay halkan ku joogaan iyo adeegga loo qabto sida loogu dedejiyo waxaan ciidanka amniga kala hadlay in la soo badiyo adeegga amniga lagu sugayo ganacsatadan beeraleydan ay sugayaan oo kuwa kamidii ay ii sheegeen inay saacado dhowr ah saacado badan inay halka joogaan insha Allah taala ciidanka halkan aan ku arkay madaxdoodana waa arki doona dadkan tirada yar ee ku hadhay beerihii Soomaaliya ee doonaya inay quud ay cunaan iyo mid dadka kale Soomaaliyeed cunaan shacabka Soomaaliyeed cuno soo saaraan waxay mudan yihiin in la sharfo waxay mudan yihiin in loo adeego waxay mudan yihiin in sida ugu dhaqsaha badan ee suuragal ah loogu fududeeyo adeegga dawladda ee ay u baahan yihiin insha Allah taala horena waa uga hadlay madaxda ciidamada qalabka sida iyo booliska haddana maadaama indhahayga ku arkay adeegga siday ugu baahan yihiin in loo adeego loo dhaqsado waxaan kala kulmi doonaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo taliyayaasha kale ee qaabilsan waaxyaha waxaanu joognaa argada Dayniile oo ah meesha khudaartu ay ka soo gasho magaalada Muqdisho ama suuqyada magaalada Muqdisho insha Allah taala sidaad arkaysaan ay saaran yihiin dhammaan noocyada kala duwan ee khudaarta moosku ha ugu badnaado meelo kala duwan ka yimid Janaale Shanambood iyo meelo ka shisheeya shidxumada haysa saacado badan soo socday insha Allah taala adeeg badan oo kala duwan oo amniga dalkana lagu sugo iyagana aanay dhibaatoon oo loo dhaqsado yaanu dawladaha sameyn doonaa aad iyo aad baa u mahadsan waxaad soo saartay warqad ah in loo fududeeyo dadka khudaarta ka ganacsada marka ay checkpointiyada ay yimaadaan waraaqdaas in laga jawaabo waa laga jawaabay sidaan kuu sheegay adeeggu intii hore maalintii hore ka cawday uu ka degdeg badan yahay laakiin weli in la sii dedejiyo baahan saddexdii baabuur ee soo istaagaba in la baaro oo ay socdaan baa loo baahan taas baan ka shaqayn doonaa insha Allah taala aad baa u mahadsan